xaflad ballaaran oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa ka qabsoontay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Xafladan oo ahayd xaflad soo dhaweyn ah ayaa waxaa lagu soo dhaweynayay musharax madaxweyne Galmudug Abukar Daahir Suuryare. Waxaa ka soo qayb galay jaaliyadda qaybaheeda kala duwan, kuwaasi oo isugu jira waxgarad, aqoon-yahano, siyaasiyiin, culumaaudiin, dhalinyaro. qaar ka mid ah dadkii maadaasha ka soo qayb galayna hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan. Abukar ayaa dhahday waxaan leeyahay madaxweyne Abukar waayo waxay u egtahay caawa caleemasaar madaxweynenimo meesha ayay u egtahay mu'eka nin musharax u eka meesha sida loo soo dhaweeyey sida hanaanka khudbadaha loo qaatay waxaan ku leeyahay Abukar ku soo dhawow waxaan ilaahay kaaga rajaynaynaa in guul iyo gobonnimo ilaahay kala kulmiyo. runtii Soomaali waxay u baahan tahay hoggaan adag, hoggaan dadka wax u qabto, hoggaan 40 sano 30 sano 33 sano oo la burburay in isku soo celiyo. inaad ku guulaysan doonto haddii ilaahay kuu qoro, haddii kalena meel ka wanaagsan heli doonto. annagu qofka dhabarka baahnaa marna ma hungoobo wuxuu helayaa. waxaan ku rajaynayaa caafimaad wacan cimri dheer, ilaahay sidaa doonayso khayr qaba allah ku yeelo. ummadda Soomaaliyeedna waxay u baahan tahay inay helaan dad ka samata bixiyo dhibaatooyinkii xanuunaha lagu jiro. adigana ku soo dhaweynaa South Africa ku soo dhawo gacan furan iyo qalbi furan. dagaalantid ama waad guulaysanaysaa, haddaad guulaysto guul iyo waxaad doonaysay haddii aad guuldareysatana nin ragoo dagaalamay baa tahay. marka waxaan marka hore kugu dhiirigelinayaa waddada inaad haysid ilaa dhammaadka insha allah. ka gadaal Galmudug, anigu waxaan ka imid Puntland. Galmudug waa waddada aan u sii marno Soomaalinimada. Soomaaliya xooggeedii koonfur ku jira, adduunkii kale iyo Afrikadaan ku xirnayna koonfur bay naga jirtaa. waddada aan sii marno Galmudug waaye, annaga iyo wixii waqooyi naga xigaba. sidaa awgeed in Galmudug hagaagto dan badan baa noogu jirta. inta dhimanna inaan ugu daraan rabaa. marka waxa waaye Galmudug waxaa lagu yaqaan moogtaa dhagaxaan fara badan iyo dagaal fara badan. marka Galmudug oo aqoon-yahano ay ka socdaan ay maanta u sharaxan yihiin, xogaa wax la siista ma lahaan u malaynaa. sax Galmudug waa isbedeshay. markii hore moogtahay qurbaha intaan la imaan koor xogaa iimaankaan ugu yaraan u malaynaa dhul dhagaxaan ka nimid. marka waa ku kadsoonnay intii kale, laakiin hadda waxaan soo ogaanay dhulkii dhagaxaaba barwaaqadii oo dhan inay jirto. batroolaa laga helay, dhacaan fara badan uu yeeshay, dadkii wax badan ay soo barteen, aqoon-yahano fara badanaa noo soo baxay. marka maantoo kale waa xilligii aan ka faa'iidaysan lahayn dalkeennii iyo dadkeennii. qurba joogta xilligii loo baahnaa maantaa la joogaa. waana u ducaynay, waana kuu ducaynaa insha allah. weliba adiga waxaa dheer tahay madaxweynayaashan aaneesta leh Suuryare waa helaysaa insha allah. meel celishaa ma leh, waayo ilaahay baa quraankiisa wuxuu ku leeyahay qul hal yastawi alladina ya'lamuuna walladina laa ya'lamuun. ma sinna qofka aqoonta leh iyo qofka ignorantiga. sidaa daraaddeed aan u xisaabtanno si aan horumar u gaarno, bulshadeenna da'yarteenna aan ka badbaadinno dagaalada iyo caqabadaha haysta iyo tahriibka inay badaha ku dhintaan. aan u abuurno Abukar isagaa ka abuuran ama ka samaysan aqoonta ummadda geli si ay u badbaadaan. da'yarta dhimanaysa ee xabadaha loo dhiibayo ee dagaalada ku leecanaya ka badbaadi, kuwa tahriibaya ka badbaadi. shaqo abuur iyo maskax iyo howlo ummadda ha la geliyo oo maskaxda iyo aqoonta cilmiga badan ee kugu duugan ooga faa'iidee Soomaali, gaar ahaan Galmudug ooga faa'iidee. alaabta soo laabatay iyo ragaasatay gobolkeena reer Galmudug. wixii wanaag waa wanaag oo la qabtay, lama sheegto. laakiin wixii markaas xumaan loo arko ayaa laga hadlaa. marka waxaan leeyahay wanaagii waa wada shaqaysanay reer Galmudug. midaan yaroo hartay oo xogaa qaladaadkeeda soo laabtay xumaanteeda ayadana aan u jeesano oo ka shaqayno si aan u gaarno maqaamkeeda heerkeeda. mar raba inaan ku dheeraado madaxweynaha ugu cid doona mar dhow. waxaan kala rabaa fariin guud. haatanna waxaan rabaa caaw saxabku aad u leeyahay inaad madaxweynaha dadku waa jecel kusoo dhawo madaxweyne.
ugu dambayn musharax madaxweyne galmudug abukar daahir suuryare ayaa maadaasha ka jeediyey khudbad cajiib ah taasi oo taabatay qulubta dadkii maadaasha ku sugnaa iraahdo reer South Africa jaaliyaddeena qiimaha badan soo dhaweyntiina diiran oo sharafta iyo gobonnimada xambaarsan oo milgeeda iyo maamuuskeedu sareeyo runtii eraya aan ku cabiro oo mahadnaqa ma hayo aadan ugu cudurdaaranaya inay ugu yaraanayaan wixii aan ku cabiri lahaa waxaan rabaa inaan iraahdo laakiin intii uun la dhihi jirayo waa mahadsantiin walaalayaal mahadnaqaas kadib iyo sharaftaas iyo karaamadaas qalbigeena la noolaa doonta muddo dheer waxaan rabaa inaan iraahdo waa jaaliyadii iigu cajiibka badnayd oo Soomaaliyeed oo aan arko ama booqdo oo midnimo Soomaaliyeed ay ka muuqato waxaan rabnaa inaan hay'adaheena dhammaantood dhisano oo dawlad wanaagga aan xoojino garsoorkeena aan ka dhigno garsoor hufan oo cadaalada oo loo siman yahay oo madax bannaan inuu noqdaan rabno waxaan rabnaa amnigeena inaan ka adkaano oo gobolladeenna aan xorta ahayn aan xorayno oo xamaaska reer galmudug iyo xoogga ay leeyihiin aan gelino inay dhulkooda xoraystaan galmudug midaysan oo gacmaha is haysata oo loo siman yahay oo la isxushmeeyo oo nabada cabdirashiid xuseen karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika